ciise cismaan xasan iyo maxamed cabdilaahi jaamac waxay kaalinta koowaad iyo labaad ka galeen tartan markii ugu horeysay lagu qabtay magaalada Hargeysa oo lagu tartamayay murqaweynida jidhka kaasoo ay ka qayb galeen 19 dhalinyaro oo laga soo xulay dhalinyaro tiro badan oo jidhiska ku sameeya xarumaha kala duwan ee ku yaala magaalada Hargeysa waxaana kala xulistoodu ay qaadatay muddo 4 bilood sida uu sheegayo سعيد إسماعيل جدي oo kamida mulkiilayaasha xarunta jiimka ee Bilkhayr oo xarunta iyadu soo qaban qaabisay tartankani noociisu cusub yahay waxaanu ku qabanay hotelka la yiraahdo Summertime waxaanu laba group ayaanu tartan siinay muddo ilaa 4 bilood oo training baa u socday macallimiin wanaagsan oo khibrad leh oo ma garanaysa professional ayaa hawsha waday tartankaasi wuxuu ahaa tartan aad iyo aad dadkii ama bulshadii oo dhan ay ugu faraxday waayo wuxuu had iyo jeer ka badbaadinaya dhibaatooyinka jira ee tahriibka dhibaatooyinka inagu habsaday sida balwadaha kala nooca gaar ahaan jaadka tartankani oo ahaa mid adag ayaa waxa sida lagu soo xulay iyo waxyaabaha lagu qiimeynayay noo sharaxay Cabdiraxmaan Axmed Maxamed oo kamid ahaa gudida garsoorka u ahayd dhalinyaradani tartamayay waxaan u kala saarinay waxay ahaayeen sida jirkoodu u dhisan yahay haddii noqdaan maskaliski haddii noqdaan muruqihii waxaanu qiimeynay jirkiisu sidee buu maskalis yahay oo xabad hilib ku jiran muruq kasta markuu soo bandhigay waxa la eegay muruqiisana muu soo gaay mise wali hilib ayaa saaran marka waxaanu u kala saarinay saasay ka koowaad kala baxaanu ku soo qaadanay oo aanu kaalifkooda siinay waxaan aragnay shaybkiisii labadii qof ee kala tartamay ma ka shay fiican yahay sida kale jirkiisu sidee buu dhisan yahay tartankani oo ay ku soo baxeen 6 dhalinyaro ayaa waxaanu nasiib u helay inaan wareysano ciise cismaan xasan oo noqday isagu tartamaha kaalinta koowaad ka galay tartankaasi laguna qiimeeyay ninka ugu murqaha weyn Soomaaliland tartanka kadib iyo maxamed cabdilaahi jaamac oo noqday guuleystaha kaalinta labaad tartanka horta markaan galayay mar walba waxaan niyadii galowtan in kaalinta koowaad galay waayo marnaba ma siiniyada ma inaan guul dareysanayo tiina way rumoodo kaalinta koowaad baan galay tartanka waxay ku dhaliyeen galana waxa weeyaan nimada jiimka horta waxay ii ahayd hobigayga yahay inaan mar walba jiimtaan ku jiro aan ciyaaro wallahi horta aad u fiican tahay dhalinyartana dhiirigelin baa u noqonaysaa tartankana ma ahayn tartan ay dawladdu garab lagu siisay tartan wuxuu anagu aan qaabaqaabisanay tartankaana de mahad celinta ugu weyn waxa iskale Saciid oo mar walba dhalinyarta la garab taagan wax agab waliba wax walba u baahan yihiin isbedel dhiirgelin weyn baan ka helay waayo marka hore target aan ku ciyaaro ma haysan oo de waska ciyaarey habeenno maqnaanay habeenno imay laakiin markii tartanka la qabtay waxaan xoog saaray markasta inaan wixii karaankayga oo de caalamka adduunka dhanba raga tartamada jimcsada waxa u jimcsan target u jimcsan kasto ay rag badan oo ciyaari jirno de iga horeeyeen hadana wax la isku dhaamaamo waxaan ku yar dhiirigelin waxa dadaalka sameeyay marka muruqa soo bandhig jintan sameeyay dhisida murqaha ee jiimka iyo hasaawaha haweenka xiriir intee leeg ayaa ka dhaxeeya dumarkeena waxay xiiseeyaan nin dhalinyaro oo jirkiisu dhisan yahay oo six pack lixdiisa muruqba ay wada muuqdaan oo ay dhisan yihiin oo muuqaal ahaanna ma garanaysaa nin buuxo caafimaad ahaan aad iyo aad u dhisan ayaa la xiiseeyaa Soomaalidu inta ugu 90% ma jecla horta ragga jiimta ciyaara oo ay sifooyin badan oo ma xiiseeyaan magaratay dad xiiseeyo way jiraan oo yiraahdaa inay six pack iska leeyahay waxa waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa